isha waxaa loo qeybiyaa laba loo qeybiyaa insi iyo jinni. Insiga iyo jinniga iyaga mataqaanaa way is ilaysan karaan. Jinniguna insigu wuu ilaysan karaa, jinnigu waa ilaysan karaa. Su'aasha taagana waxay tahay marka labadooda markay is ilaystaan, tusaale jinniga insiga insi ilaysto, xaaladaha uu la kulmaa in badan waa aragnaa. tusaale dadka hadda oo kale mataqaanaa oga dhimirka loogu jiro meelaha aan ku aragno, dadkaas waa dadkii jinniga uu asiibay macnaha. natiijadeeda way caddaa oo in badan wayn aragnaa. marka insiga haddii uu jinniga ilaysto ama il uu ku asiibo, xaaladiisa mataqaanaa sidee noqonaysaa macnaha. haddaba muuqaalkan waxaan kugu wadaagaa sida ay xaaladiisa noqonayso. jinnigu ama insigu markuu asiibo jinnigu, marka qaar waxaa dhacdo qof bini aadan ah oo jinni arka oo way dhacdaa. isha bini aadanka markii ay ku dhacdo jinnigu noloshiisa way sii dhamaataa oo mataqaanaa ma sii noolaado. isla markii waxaa dhacaysa jinniga inuu dhinto oo mataqaanaa uu adduunyada ka faaruqo.